wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada Baahin News warbixinada caalamka aan idin hayno maanta waxa ugu waaweyn madaxweynaha Ruushka iyo dhigiisa Syria Bashar al-Assad oo kulan wada yeeshay waxyaabihii ay ka wada hadleen ayaad maqli doontaan Mareykanka mudaharaadyo waaweyn oo ka dhashay imaatinka ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu warbixin iyo faala ayaan kaga haynaa iyo dhacdooyin kale oo aanu idiin soo gudbin doono waxaan ku horeynaynaa booqashada madaxweynaha Bashar al-Assad ee Syria ee dalkaasi Ruushka gaar ahaan caasimadda Moscow haddaba waxyaabihii ay ka wada hadleen soo qaadan doonaa waxaan ku horeynaynaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu fidnimadii Arbacada ku qaabilay madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad magaalada Moscow taasi oo qayb ka booqasho aan la sii shaacinin oo markii dambe uu ku tagay Ruushka sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Kremlin-ka saaka oo la socday qoraal iyo sidoo kale muuqaal bayaankan ayaa lagu sheegay in Putin uu kala hadlay Bashar al-Assad xiisada ka taagan bariga dhexe Gaza iyo waxyaabaha halkaasi ka taagan waxa inta ku dareen in sidoo kale ay ka wada hadleen xiriirka dhaqaale ee labada dawladood waxaana kamid ah waxyaabaha qoraalkaasi ku xusnaa waxaan fursad u haysanaa inaan ka wada hadalno dhammaan nidaamka xiriirkeena buu yiri Putin oo laga soo xigtay Bashar al-Assad ayuu sheegay in ay yihiin laba shakhsi oo aad u xiiseynaya sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen cilaaqaadkooda marka laga hadlayo dhacdooyinka dunida ka dhacaya imika iyo kulankaasi oo noqon doono mid muhiim ah oo ay ka wada xaajoodaan dhammaan faahfaahinta la xiriirta horumarka dhacdooyinka laga wada hadlo rajada iyo sidoo kale xasradaha ka taagan dunida sida laga soo xigtay warbaahinta Ruushka xiriirka ugu dambeeyay ee qadka telefoonka ee u dhaxeeyay Putin iyo sidoo kale Assad waxa uu dhacay 23 Maarso kadib weerar lagu qaaday hool ku yaala duleedka caasimadda Ruushka kulankii ugu dambeeyay tooska ah oo ay ku yeesheen Moscow ayuu ahaa kulankan haweeney bal waanu soo qaadan doonaa waxa jirta dhacdo kale oo aan doonayo in aynu isha marino baraha bulshada waxa ka socda hadalhayn xoogan oo ka dhashay carada markaasi dadka Mareykanka ay iyagu ka muujinayaan booqashada ra'iisul wasaaraha Israel Mareykanka haweeneydan aad sawirkeeda halkan uga jeedaan waa xubin ka tirsan aqalka Congress-ka waxaana lagu magacaabay Rashida Tlaib intay socotay khudbadii ra'iisul wasaare Netanyahu waxay sameysay arrin la yaab leh iyadoo la sidatay boor ku qoran ereyo dhaleeceyn iyo cambaareen isugu jira oo ka dhanna Benjamin Netanyahu haweeneydan ayaa qoorta ku sidatay cimaamada iyadoona si aan gambasho lahayn u taageysay boorka intii uu khudbada jeedinayay Netanyahu waxaana ku qornaa waxa tahay dambiile geystay dagaal arrintan ayaa hadalhayn weyn ka dhalisay baraha bulshada Falastiiniyiintu waxay mudayihiin inay noolaadaan oo ay horumar gaaraan mana ogolaan doono in Netanyahu uu xasuuqa halkaas uu ka geysanayo oo ku tirtiro jiritaankeena waxaana arrintan ahayd mid markaas baraha bulshada aad u qabsatay haddaba haweeneydan waxay dhalatay 1976 waxayna la dagaalantay ama ay ka qayb qaadatay dagaalo iyo sidoo kale hadallo kala gedsan oo ay ku difaacisay xaqa Falastiin iyo dhulkaasi ay leeyihiin waxayna caan ku tahay mowqifkeeda adag ee ka dhanka taageerada aan shuruudda lahayn ee Mareykanka uu siinayo Israel haddaba aqalka cad ee wakiilada Mareykanka aqalka anirada Congress-ka wakiilada Mareykanka oo iyadu xubin ay ka tahay bishii November ee la soo dhaafay waxa uu meelmariyay qaraar loogu hor istaagay in haweeneydaasi ay qaraar cad ku dhaleeceyso Joe Biden iyo siyaasadda looga mamnuucayo ka hadalka arrimaha siyaasadda Israel ee Gaza tan iyo 7 bishii October ciidamada Israel oo taageero buuxda ka helaya Mareykanka waxa ay dagaal ba'an ku hayeen marinka Gaza waxaana sare u kacay weeraradaasi ka dhanka daanta galbeed haddaba dagaalkan waxa uu galaaftay dad gaaraya 129,000 oo Falastiiniya oo intooda badan caruur iyo haween u badan in ka badan 10,000 oo kalena uu leeyahay iyadoo jirto burbur iyo macluul baahsan oo ka dhalatay dagaalkaasi saacado ka hor inta uusan Netanyahu bilaabin khudbadaasi uu ka jeedinayay halkaasi ayaana haweeneydaasi iyadu si cara leh uga hortimid mowqifka iyo hadalka halkaasi uu ka jeedinayay Netanyahu haddaba waxaana baraha bulshada aad u qabsanaya saacadii aynu ka soo gudubnay banaanbaxyadaasi ay ka dhigayeen afaafka hore ee Capitol aqalkaasi Congress-ka Mareykanka oo ku sugnaa Benjamin Netanyahu halkaasi oo dadyo badan
ay isugu soo baxeen warbaahinta gaar ahaan Al-Jazeera waxa ay baahinaysay qaar ka mid ah kumanaan mudaharaadayaal oo ugu dambeyntii isugu soo ururay guud ahaan magaalada caasimadda si ay uga soo ama ay u dhaliilaan una dhaleeceeyaan hadalka ra'iisul wasaaraha iyadoo sharci dejiyaasha Mareykanka ay ugu sacbeenayeen Netanyahu gudaha dhismaha gurigaasi dhaqdhaqaaqayaashan ayaa ku baaqayay in isaga lagu maxkamadayo xadgudubka la xiriira dagaalka Israel Gaza qaar badan ayaa ku doodaya Netanyahu yahay dambiile oo isagu aan mudnayn inuu ku jiro Congress-ka dibadbaxayaashu waxay wateen sawiro iyo sidoo kale calaamo ay markaas taageero iyo garab istaag ugu muujinayaan Falastiin haddaba sharci dejiyaasha labada aqal sanadka iyo sidoo kale aqalka wakiilada ay ku casuumay Netanyahu inuu khudbad ka jeediyo oo ka hor hadlo fadhiga wadajirka Congress-ka inkastoo labada xisbi ay muujiyeen taageerada sharci yaqaano kala duwan ayaana ka baaqday baa leeyahay ka baaqsaday in ay ka soo qayb galaan khudbadda halkaas uu ka jeedinayay Netanyahu qaar ka mid ah dadkii carada halkaas ku muujinayay oo shacabku ay hayeen ayaana ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah Israel iyo sidoo kale Netanyahu haddaba waxay ku soo kordhay warbixintaasi qaybaha dambe ayaanu faafayn doonaa hase ahaatee mudaharaadayaashan waxa kale oo ay iyagu ay hayeen kuwa markaasi boorar dhowra isbarbar dhigaya hogaamiyihii Hitler iyo sidoo kale Netanyahu oo ay sheegeen in ay ka sameeyeen xasuuqa ka dhanka aadanaha Netanyahu dhanka kale waxa iyana hadalhayn badan baraha bulshada ka dhalisay isla hotelka markaasi uu ku sugnaa Netanyahu oo dad markaasi dibadbaxyaal ah oo garab istaag iyo taageero ugu muujinaya reer Falastiin kana ka soo horjeeday xasuuqa ka dhanka shacabka Falastiin ee ka socda Gaza waxa intooda badan qaarkood baa leeyahay ay gudaha hoolka ay markaasi ama halka loo yaqaan conference hoolka oo shirka uu kula yeelanayay xubnaha kale ee Mareykanka ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu intooda badan ay ku daadiyeen baa leeyahay miiska hoolkaasi sida videoga halkan aad uga jeedaan sawirro kala gedsan waxa ay markaasi ay halkaasi ku daadiyeen baa leeyahay cayayaano isugu jira cayayaano badan oo gaar ahaan cayayaanadaasi oo ay ku fasaxeen oo qaarkood ay ku jiraan ayaxa iyo cayayaan kale oo halkaasi la soo geliyay inkastoo maamulka hotelkaasi uu arintaasi aad u cambaariyay haddana waxaa jirtay arrimo kale oo baraha bulshada aad la isku dhaxmariyay waan soo gudbin doonaa haddii Allaha awood leh laga helo wixii ku soo kordho warbixintaasi iyo warbixinada kale oo aan rajeynayo in aad markaasi ka bogan doontaan saacadaha inagu soo aadan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa muuqaalkayga maanta fadlan subscribe inoo saar channelkan like gareey muuqaalkan la wadaag asxaabtaada sidoo kalena waxaad sugi doontaan muuqaalo kale oo halkan aad inaga fili doontaan saacadaha inagu soo aadan Baahin News waxay u taagan tahay soo gudbinta warbixino iyo dhacdooyin kala duwan oo caalamka waxyaabaha ka taagan qayb ka ah mahadsanidin